waxay leedahay gabadhani assalaamu calaykum ninkayga ayaan ka gatay dalqadihii imise dhiig baan tirsadaa cuddo ahaan masaladaasi waa masalada la yidhaahdo khuluca khulucu waa in dalqadaha wax la dhaafsado oo ninku uusan caadi isaga furin balse uu dalqadihii wax ka dhaafsado maalan meherkii inay ka cafiso saasuu ku furay shardigaas inay xoolo siiso ayuu ku furay shardigaas inay xaq ay leedahay ka tanaasusho ayuu ku furay shardi buu ka dhigay sidaa markuu ku furo khuluc baa la yidhaahdaa khulucu axkaam badan buu kaga gedisan yahay talaaqa iyo furitaanka haweenaydii marka qaabkaasi lagu furay oo la khulcay oo mukhtalicada ah ciddaday tirsanayso intay dhan tahay waa su'aasha jawaabtu wax weeyaan waa mas'ale isku khilaafsan yihiin fuqahadu badankoodna waxay qabaan sida mid la furay bay 3 dhiig tirsanaysa haddaynan dhiig lahayn ama aysan gaarin ama ay dhaaftayna 3 bilood bay tirsanaysa iyadii mid la furay waa isku ciiday qabaan fuqahada badankood laakiin waa ra'yi laga xoog badan yahay sida xooga badan ee sunnada nabigu ku tustay sallallahu alayhi wasallam haweenayda noocaasa waxay cidda tirsanaysaa hal caaday ku cidda tirsanaysaa hal caada hadday hesho ciddadii way ka baxaysaa kadibna way guursan sida waxa ku tusaya xadiis nabi ka sugan sallallahu alayhi wasallam oo kamid yahay xadiidka الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها waxay leedahay ثابت بن قيس بن شماس صحابي اللي يراهدو ayaa xaaskiisii garaacay فكسر يدها markaasuu gacanta ka jabiyay xaaskiisana waxa la dhihi jiray Jamiila bint Abdullah ibn Ubay baa la dhihi jiray markaasaa walaalkeed baa u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam asagoo dacwo ah rasuulku waa u cidiray sallallahu alayhi wasallam Thaabit baa loo cidiray waa odaygii jabiyay gabadha gacanta ka jabiyay markaasuu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam khudi alladhi laha alayka wa khalli sabilaha wixii aad kulahayd oo siisay oo meher ka qaado sidaayo farahana ka qaad waayahay buur sida gabadha markii lagu furay fa amaraha rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam an tatarabbasa haydatan waahida nabigu markuu wuxuu amray inay sugto intay ka helayso hal caada ah fatalhaqa bi ahlihi kadibna ay reerkoodii aaday guur haday artay guursato macnaha tirmidhi an-nasaa'i baa soo saaray sanadkiisuna waa saxiix waxa isla mid ah xadiidka Abdullah ibn Abbas wuxuu leeyahay haweenaydii Thabit ibn Qays way khulcatay oo waxay isku furtay meherkii oo celisay nabigu ciddadeedii wuxuu ka dhigay hal xayd buu ka dhigay Abu Daawud iyo Tirmidhi iyo Darqutni ayaa soo saaray waana xadiidka hore marka lagu xoojiyo saxiixa Hakim iyo Dhahabi Sheikh Albani ayaa saxiixinaya axaadiista marka la fiiriyo waxa sax ah oo xoog badan haweenayda la khulcay 3 dhiig tirsan mayso sida talaaq oo kale hal caado ama hal dhiig bay tirsanaysaa kadibna ciddada waa ka baxaysa sida waxa ku tagay saxaabada qaar kamid ah sida Uthman ibn Affan Abdullah ibn Umar gabadhan xadiiska warinaysa Rubayya kibaaru saxaaba bal wuxuu leeyahay al-Imam Ibn Qayyim alayhi rahmatullah la yu'rafu lahum mukhalif min as-sahaba wax saxaabadu khilaaftay lama hayo buu leeyahay طيب qaar ijmaac bay soo guurinay ijmaac as-sahaba sida Abu Ja'far an-Nahas oo kale fi an-nasikh wal-mansukh wa sidaasi waxa weeyaan waxa qaba al-Imam Ahmad fi ihda riwayatin asah riwayatin bi kutul maman Ishaq ibn Rahawiyya al-Imam Ibn Mundhir waxa doortay Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah waana sida daliil ahaan xoog badan waa sida fasakh oo kale waa fasakh la mido fasakhana hal caadi ku cidda tirsadaan ala sahih wasa mas'ala khilaafiyya wallahu a'lam